Sidee ku noqon kartaa qof ku sarreeya oo ku wacan dhanka waxbarashada? Waxaa dhab ah inaad su'aashan isweydiinaysid, aadna doonaysid inaad noqotid ardayga ugu horreeya ee fasalkaada, iskuulkaada ama jaamacaddaada. Maanta waxaan ku hayaa 3 qodob oo muhiim ah oo aad ku noqon kartid ardayga koowaad ee kalaaskaada. Arday ay saaxiibadiis iyo macallimiintiisba ay farta ku fiiqaan marka la soo hadal qaado xagga aqoonta iyo waxbarashada. Bilow maanta barashada luqadda aad wax ku barato. Haddii aad doonaysid inaad noqotid arday ku fiican waxbarashada, ku sarreeya maadooyinka uu goobtiisa waxbarasho ku dhigto, tallaabada koowaad ay tahay inaad qaadid waa inaad baratid afka aad wax ku baratid. Ka soo qaad tusaale ahaan inaad wax ku baratid af Ingiriiska. Bilow maanteeto in aad baratid afkaas. Iska soo qor meel ama goob aad ku baranaysid afkaas. Waxaad ka baran kartaa goob ku taala magaaladaada aad degan tahay, ama waxaad isticmaali kartaa internetka oo internetka waxaa ku jiro casharro fara badan. Taa waxaa la mid ah haddii aad wax ku baratid af Carabiga, ayadana baar meel aad af Carabiga ka baratid. Qodobka labaad, la daris buugtaada. Maxaan kala jeedaa inaad la darisid buugtaada? Waxaan ka wadaa inaad buugtaada la noqotid saaxiib aad ugu dhow, inaad goor kasta aad muraajacaysatid, akhrisid, aadna ka warhaysid. Tusaale, haddii aad rabtid inaad barato ama aad ku fiicnaatid maadada xisaabta, soo iibso buugga xisaabta hadduusan kuu oolin. Marka macallinku uu dhigo cashirka oo uu ka bixiyo note una kuu diro layliga, adiga suubi layliga uu macallinka kuu diray. Oo weliba layliga bis ha suubinine oo ha ku ekaanin, waxaa suubisaa dhammaan layliyada mawduucaas quseeya ee buugga ku qoran. Waxaa sidoo kale muhiim ah inaadan ku ekaanin halkaas buug ee uu kuu dhigo macallinkaaga ama ay qorshaysay hay'adda waxbarashada iskuulkaas in lagu dhigo. Taa beddelkeeda waxaa raadaysaa buug badan oo quseeya isla mawduucaas aad doonaysid inaad wax badan ka baratid. Baar oo soo gado buugtaas, akhri, samee layliyadooda. Taas waxay ku sahli doontaa inaad maadadaas si wacan u baratid. Qodobka saddexaad, la saaxiib dadka kaaga wanaagsan dhanka waxbarashada. Qodobkan saddexaad wuxuu ku leeyahay la saaxiib dadka kaaga wanaagsan maadada aad baratid ama aad doonaysid inaad baratid. Ama si kale haddaan u dhaho, dadka kaaga dadaalka badan ee waqtiga badan geliya maadadaas inay bartaan amaba bartay. Sababtoo ah dadka waxay kuu noqon doonaan marjic aad u laabatid. Waxay kaa saacidi doonaan inay kula xalliyaan caqabadaha ku soo wajahaya, ama inay kuu soo jeediyaan talooyin kale oo ayaga u shaqeeyay. Ama ugu yaraan waxay kuu noqon doonaan dhiirigelin si aad u sii laba jibaartid dadaalkaaga. Muuqaalkan waxaan ku soo qaadanay 3 qodob oo qofka ardayga ka saacidaysa inuu noqdo arday ku fiican dhanka waxbarashada, natiijo fiicanna ka keena. Haddii aad muuqaalka ka heshay, like saar, subscribe saar kanaalka. Halkan waxaan soo gelinaa muuqaallo kala duwan oo la xiriira dhanka waxbarashada iyo dhinacyo kala duwan oo nolosha quseeya.